السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا wanaagsan dhamaan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channel Examiner Kista Official fadlan hadii tahay mar kale soo boqoto channelka loo soo iskaargalay sidoo kale seen gabadha ka furo si markasta ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ah kala soo galino hadii aad hore u joogtana muuqaalka noo leey kare sidoo kale sii share kare si muuqaalku u gaaro saaxiib badan wala ku maasantiin barnaamijkan maanta wax ku soo qaadanayna filimka lagu magacaabo Sara Hajki Bajki oo hogaamiyalka Fiki Koshel sidoo kale Sara Ali Khan ganacsiga State Mall halka uu marayo sidoo kale saaxiibada qiimaha badan soo qaadan karna labada filim ee kala Gardar 2 iyo sidoo kale filimka hogaamiyay Nadamuri Balakrishna oo hore loogu yeeray 108 ama 180 oo filimkan waxa shacay qaaday xilliga rasmiga daawan doono iyo sidoo kale filimkan magaca marka loo bixiyay sidoo kale filimka kan waxyaabo ku saabsan barnaamijkan qaybta ay ku soo qaadanayna hadii aan ku hormaro filimka hogaamiyalka Fiki Koshel sidoo kale Sara Ali Khan Sara Hajki Sara Bajki filimkan waa filim xiiso badan wax soo baxay 2 June sida ogeyn hada ku dhawaad State Mall filimka teatar saarna shalay jimcada filimka ganacsi wanaagsan oo markaa sameeyay taasna waxay ka caawisay filimka inuu markaa 40 karoor gaaro sidoo kale filimka markaa 55 karoor gaaro oo noqonaya filim markaa guulaysto average taasna waxa kaga dhiman 15 karoor kaliya maanta sabtiyay sidoo kale barito ahada filimka hadii si wanaagsan markaa isku celiyo waxay ka dhigan tahay filimkan oo noqon doona filim markaa guulaystay maadaama markaa la fiiriyo jimcada foodan uu soo bixi doona filimka weyn Adebrush وسوق marka hindidu marka ama hindigu u sugayaan filimkan waxa laga rabaa 6 maalin foodo ku soo haysa filimkan oo marka Adebrush soo bixi filimka ganacsi fiican marka sameeyo ilaa 15 karoor filimkan ilaa 6 karoor filimkan uu keeno taas waxa ka dhiganta filimkan noqon doona filim marka average hubantaan loo gaari doona filimkan maadaama maalmihii shaqada adkeeda ilaa isniin ilaa khamiis filimkaas si weyn isku celiyay maanta sabti ahada filimka kor u kac weyn marka uu sameeyo waxa ka dhiganta filimkan inuu hiigsanayo sidoo markaa ku gaari lahaa average hadana ganacsigiisa marka la fiiriyo World War Global filimka marka la fiiriyo 40.27 karoor ay filimkan marayaan ku dhawaad 15 karoor ama 20 karoor filimkan hadii markaa 6 maalin foodan uu soo keeno hubantaan filimka waxa noqon doona filim guulaystay saaxiibada qiimaha badan filimka intaas ayaa ku cusub 8 maalin filimka wuxuu sameeyay ganacsi wanaagsan leesma dhahay filim marka hogaamiyalka Fiki Koshel sidoo kale Sara Ali Khan ayaa ganacsi intaas la keeni doona maadaama dadkii ka waaweynaa marka filimada teatar saane marka ay ku fashilmeen hubantaana filimka waxa noqon doona filim marka guulaysan doona hadii aan inta kaga soo gudubno filimka lagu magacaabo Sara Hajki Sara Bajki oo Bollywood iska lahaayeen shalay jimcihii filimka lagu magacaabo Gardar 2 ayaa waxa la soo bandhigay teaser yar oo kooban sidoo kale filimka teaserka waxa lagu soo dhexdaayay filimka lagu magacaabo Gardar Ekbaram Kata ayaa 22 sano kadib waxa la saaray teatarada ayaa marka dib loogu cimay ama release ayaa filimka loo sameeyay oo marka teatarada ayaa la saaray isagoo filimkan new version ama qayb cusub marka filimkan laga dhigay oo lagu taayay aalada 3D iyo filimkan waxa laga dhigay 4K HD ama si waadax ayaa filimkan loo daawaday sidoo kale filimka waxa lagu soo dhexdaayay Goosgooska Gardar 2 oo filimkan la daawan doono 11 August 2023 si weyn ayaa marka Goosgooska loo soo dhaweeyay Diol sidoo kale doorka kaalinta adag qaatay sidoo kale filimka jilayaasha kala duwan ka soo muuqan doona waxa kamid ah xigta lagu magacaabo Misha Patel oo qaybta hore marka Gardar Ekbaram Kata sanadii 2001 la daawaday ay marka doorka tirashada qaadatay qaybtan doorka tirashada qaadanta waxa ku metelta sanadii lamaantiisa ama xaaskiisa ay filimkan ku metel doonta sidoo kale filimka waxa ku soo biir aktarka lagu magacaabo Atuk Sharma oo filimka ku metelay sanadii wiilkiisa ay filimkan ku metelaya wiilkan waxa aba directorka lagu magacaabo Anil Sharma oo filimkan agaasimaya sidoo kale marka la fiiriyo filimkan qaybta soorka all time blockbuster ay noqday sanadii 2001 waxa noqday sanadkan lacag ugu badan filimka marka la fiiriyo dhankaasi Bollywood ka soo xareeyay ilaa ganacsiga 100 karoor marka ka tilaabay wuxuu noqday Sunny Deol filimku marka ku qabsaday Bollywoodka waana filimku ku faanay ninka lagu magacaabo Sunny Deol Gardar Ekbaram Kata hadii filimka waxa directorka ninka lagu magacaabo Anil Sharma oo hore filim badan soo sameeyay ninka lagu magacaabo Sunny Deol filmaas waxa kamid ah Gardar qaybtii koowaad iyo sidoo kale filim classic ah marka ku faanay Red Deol Apne marka ka soo wada marka la fiiriyo Red Deol marka kamid Baby Deol Dharmandara iyo sidoo kale Abhay Deol hadana waxay soo wadaan filimka lagu magacaabo Amne Part 2 marka filimkan waxa lagu soo doono ciyaarada marka ay dhaleen familka Baby Deol sidoo kale Sunny Deol waxana qayb ka noqon doona Karan Deol marka abu yahay Sunny Deol sidoo kale waxa sameeyay film classic ah Sense of the Great marka ku xifaaltamay Sunny Deol sidoo kale Barkash Raj filimkaas oo sanadii 2016 sidoo kale hadii waxay dib ugu soo laabteen Gardar 2 oo Sunny Deol sidoo kale Anil Sharma waa laba marka si wanaagsan marka uu soo wada shaqeeyay hadana waxa la filayaa filimkan classic marka lagu magacaabo Gardar 2 in 11 August waa daro u dhigi doono
sidoo kale filimka shirkadda C Studios ayaa wax ka qayb qaadatay dhanka production-ka ama wax ka maalgelisay sidoo kale dhanka cajalada qaymin doonta oo filimkan macaash fara badan markaa filimka ka raadin doonta shirkadda lagu magacaabo C Studios maadaama filimka kharash badan markaa shirkaddan ka galay saaxiibada qiimaha badan markii aan fiirino qaybtii hore filimka ganacsiga waa leeyahay markaa samaysay oo waxay gaadhay ku dhawaad 130 koror ay filimka qaybsiga soo xareysay taasoo ka dhigantay ganacsiga waa leeyahay markaa sanadkii 2001 markaa samaysay qaybta koowaad haddana qaybta labaad waxaa la filayaa ganacsi ka saameyn badan oo ilaa 200 ilaa 250 koror inuu filimka qaybta labaad gaari doonto sidoo kale filimka goosgooska lagu soo bandhigay tiyaatarada ama si weyn ay markaa u soo dhaweeyeen daawadayaasha sidoo kale taageerayaasha markaa uu leeyahay Snidiol oo dib markaa masraxa ama tiyaatarada ugu soo laabtay filimkiisa kalaasigana dib ula soo noqday Gardaar 2 filimkan waxaa fiirin doonaa 11 Agosto filimkan wuxuu gali doonaa isku dhacyo waaweyn oo markaa ka mid yihiin filimka lagu magacaabo Animal oo markaa Ranbir Kapoor wato sidoo kale filimka Animal ayaa markaa filimka xifaaltami lahaayeen balse hadda Akshay Kumar ayaa filim kale cusub la imaaday 11 Agosto kaasoo lagu magacaabo Oh My God 2 oo hore markaa Akshay Kumar qaybsiga u sameeyay haddana qaybta labaad waxaa daawan doona 11 Agosto taasoo ka dhigantay 3 filim big movie ayaa markaa isku dhici doona 11 Agosto taasoo markaa caqabad ku noqon karta fanka Bollywoodka oo laga yaabo 3 filim markaa tiyaatar aan ku filan in markaa helaan oo markaa caqabad ku noqota ganacsi fiican in markaa sameeyaan waxaa laga yaabaa labada filim ee Animal sidoo kale filimada lagu kala Oh My God 2 inay markaa baqdaan maadaama labada filim markaa yihiin laba filim markaa wali shaqo ku socoto halka Gardaar 2 wali markaa filimka shaqadiisa ay dhameystiran tahay haddana filimkan laga soo bandhigay teaser kooban hubantaan filimka lagu magacaabo Gardaar 2 11 Agosto ma baaqan doono asxaabta filimkan waxay ka soo kordhan wixii laga soo sheegay filimka waxaan kusoo gudbin doonaa barnaamijyadan xiga ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan barnaamijkan waxaa kusoo gabagabeyn la actorka lagu magacaabo Nandamuri Balakrishna ayaa filimkiisa cusub waxa laga soo bandhigay teaser yaro kooban isagoo filimka teaserkan kooban xilli markaa uu dabaaldegay dhalashadiisa ayaa filimka teaser kooban laga soo bandhigay sidoo kale filimka teaser kaliya waxa laga soo bandhigay filimkan magaciisa rasmiga oo markaa tiyaatar lagu saari doono isagoo filimka magaca loo bixiyay Fakfaan Kisaari ayaa filimkan loo bixiyay taasoo ka dhigantay hadda filimka lagu magacaabo MBK 108 filimka loogu yeeri doono oo magaca rasmi ah filimka lagu bixiyay Fakfaan Kisaari ayaa magaca rasmi ah filimkan noqon doona sidoo kale filimkan waxaa doorka tashada qaadan doonta xigta lagu magacaabo Kajal Agrawal halka xigta markaa lagu magacaabo Srilela ee filimka kaalin la qaadan doonto sidoo kale filimkan waxa laadar awood badan loogu dhigay ninka lagu magacaabo Arjun Rampal ayaa filimka dhankaasi talugu markii ugu horeysay filim marka laadar ka noqon doona waana filimkiisa ugu horeeyay koonfur Hindiya marka la fiiro doorka laadarimada qaadan doona waana xifaaltaamin doona Nandamuri Balakrishna ona kamid ah marka la fiiro superstarada ugu awood badan marka la fiiro fanka talugu marka la fiiro Nandamuri Balakrishna labadiisa filim ugu dambeeyay waxa noqday laba filim marka guuleystay akhanda sidoo kale filimkiisa ugu dambeeyay Hafira Simha Reddy waxay laba filim kalaasiga haddana filimka la xisaab badan Fakfaan Kisaari Arjun Rampal filimka laadar ka yahay waa filim si weyn marka loo sugayo sidoo kale filimkan waxa la filayaa bilaha October sidoo kale November in marka la daawan doono maalmaha foodan uu saas ama bisha July ama Agosto ayaa shaaca laga qaadan doona xilliga rasmiga la daawan doono filimkan sidoo kale filimkan waxaa agaasimay ninka lagu magacaabo Anil Ravipouri ayaa filimka directorka hore directorka waa director aqriya filmo kalaasika oo markaas sameeyay waxa kamid ah filimada kala F2 ama Fast and Fun and Frustration 2 oo markaa uu sameeyay Final Stage sidoo kale ninka lagu magacaabo Venkatesh 2018 Blockbuster noqday iyo sidoo kale film classic Raja the Great oo markaa hogaamiyay ka ninka lagu magacaabo Rafi Teja kaasna waxaa film markaa guuleystay 2020 wuxuu soo saaray filimkii markaa Saluluna Kafaru oo markaa uu sameeyay Mahesh Babu 2020 filimkaas wuxuu noqday all time blockbuster record walba filimka marka la fiiriyo dhankaas lagu yeelay filimkan ayaa markaa jabiyay haddana filimkan xisaab badan MBK oo loogu yeeri jiray 108 ayuu markaa u sameyn doona ama Nandamuri Balakrishna filimkiisa 108 ayuu markaa u sameeyay ninka lagu magacaabo Anil Ravipouri oo markaa dhaarta laga dambeeyay dhankaas lagu filmo classic markaa sameeyay haddana filimkan xisaab badan lagu magacaabo Fakfaan Kisaari ayuu markaa director ka yahay sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan marka la fiiriyo waxa producerka ninka lagu magacaabo Sahu Garbati ayaa filimkan markaa maalgelin doona sidoo kale filimka teaserka laga soo bandhigay inaba caadi ma aha kaalintu qaatay ninka lagu magacaabo Nandamuri Balakrishna sidoo kale filimka door macquul ay markaa la siiyay ninka lagu magacaabo Arjun Rampal iyo sidoo markaa uu xarakeynay Arjun Rampal iyo sidoo kale doorka markaa laga siiyay Arjun Rampal dhawaanaha marka la fiiriyo fanka Bollywood oo ka fariistay oo filmo yar markaa iska sameynay hadda filimka kaalin buuxda ayuu markaa ka qaadan doona
wuxuuna cagta u saari doonaa ninka lagu magacaabo Damaro Balakrishna oo filimka markaa ku matay nid awood badan sidoo kale dialogue kala duwan oo markaa adeegsanayo inta badan lagu yaqaan ninka lagu magacaabo Damaro Balakrishna ayaa filimka lagu soo bandhigay teaserkan inkastoo filimka teaserka lagu soo koobay Arjun Rampal sidoo kale ninka lagu magacaabo Damaro Balakrishna oo kaliya halka gabdhaha kale Kajal Agrawal sidoo kale Sirilela marka la fiiriyo teaserkan kama aysan soo muuqan taasoo ka dhigtay filimka trailerkiisa inuu markaa xiiso badan yeelan doono oo ilaa 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo trailerkiisa filimka la geyn doono maadaama filimka ay shaqo badan markaa ku socoto waxa laga yaabaa ilaa markaa filimka lagu ciidaha kale Kajal Agrawal sidoo kale Sirilela ina markaa filimka muuqaalada ay ku lahayn wali markaa aysan duubin ayaa laga yaabaa sidaas ay markaa teaserka uga maqlaadayeen saaxiibada qiimaha barnaamijka maanta intaas ay ku ekeenayna waxay ka soo gudbinaa filimada kala gardaartu iyo sidoo kale Fast Kasari waxaanu ku soo gudbin doonaa barnaamijyada xiga fadlan haddii aad ka heshaan muuqaalka noo like garee sidoo kale sii share gareeya waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh